because they could have stopped it. They should have stopped it long before it was started. I said, how do you let it get built and then you say they have a dam? xiisad xoog leh ayaa ka dhalatay hadal ka soo yaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku wajahnaa siyaasadda geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxeeya. Trump waxa uu muuqday in la saftay dalka Masar oo Ethiopia isku hayaan biyo xireenka laga sameeyo biyaha wabiga Niilka ee Ethiopia ay dhameystirtay isla markaan hadda ay u diyaarsan tahay inay ka sameyso mashaariic waaweyn oo ay sheegtay in dalkeeda ay muhiimad weyn ugu fadhiyaan. Ethiopia waxay saacado gudahood ka dalbatay Mareykanku inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa lagu xaqiijiyay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Ababa. wasiirka arrimaha dibadda ee Addis Ababa ayaa xafiiska ugu yeeray safiirka Mareykanka ee Ethiopia Mark Raynor si uu sharaxaad uga bixiyo hadalkii Trump ee ahaa in Masar ay burburin karto biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisanayso biyaha wabiga Niilka. wasiirka arrimaha dibadda ee Addis Ababa ayaa hoosta ka xariiqay inay marxabaamin tahay wararka sheegaya in biyo xireenku uu hakinayo qulqulka biyaha wabiga Niil. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxaan la aqbali karin lagu tilmaamay in madaxweyne Mareykan oo xil haya uu horiyo colaad dhex marta dalal Afrika ku yaala oo ah Masar iyo Ethiopia. wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu dhanka kala sheegay oo uu sheegay safiirka Mareykanka in Ethiopia aysan weligeed ka cabsan hanjabaad ka dhana madax banaanideeda isla markaana ay diyaar u yihiin si wadaan wada xaajoodka ay garwadeenka ka yihiin midowga Afrika. marsiyo horreysay ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in dalkiisu aanu u dulqaadan doonin daandaansi ama gardarro noocay doonto ha ahaatee kadib markii madaxweynaha Mareykanku uu sheegay in Masar ay burburin karto biyo xireenka ay Ethiopia ka dhisatay wabiga Niilka. Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in Ethiopia ay dhameystiri doonto biyo xireenka. Ethiopia isma dhiibi doonto usumana dhiibi doonto gardarro noocay doonto ha ahaatee ayuu yiri. Ethiopia weligeed jilbaha uma dhigan oo ma adeecin cadawgeeda balse waxay xushmaytaa saaxiibadeeda mana samaynayno maanta mustaqbalkana ma samayn doono inaanu cadawgeena jilbaha u dhiganno. hanjabaad kasta oo arrinta ku saabsan waa mid aan loo meeldayn oo aan ka natiijo ka soo baxayn isla markaana jabinaysa shuruucda caalamiga ayuu qoraalkiisa ku daray Abiy Ahmed ka xukumay Ethiopia. hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu ka dambeeyay markii madaxweynaha Mareykanku uu sheegay hadal guux badan ka kiciyay gudaha waddanka Ethiopia. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhinac dhisayso wabiga Niil. Trump ayaa hadalka ka sheegay shir dhinaca telefoonka oo ay heshiiska diblomaasiyadeed ku gaarayeen Sudan iyo Israel. markaas oo khadka telefoonka ay ku jireen madaxda labada dal. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam and I said it and I say it loud and clear, they'll blow up that dam. Trump ayaana ay wariyaasha u sheegay wax xaalad aad u halis badan sababtoo ah Masar sidaas ugama samri karto arrintan. ugu dambeyntii biyo xireenka way burburin doonaan. waan iri kor ayaan u leeyahay biyo xireenkaas way burburin doonaan Masar waa inay wax sameeyaan Masaaridu ayuu yiri Trump. madaxweynaha Trump intaas kuma uusan ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar arrintaas ay ka seexatay waa hore inta uusan bilaaban ayay ahayd inay joojiyaan ayuu yiri Trump. ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ethiopia Masar Haile Mariam ayaa si carale uga falciyay arrinta. ra'iisul wasaarihii hore ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in hadalka Trump uu sheegay ra'iisul wasaaraha Sudan uu yahay mid aan loo meeldayn. waxa uu intaa ku daray inuu ka xun yahay inuu yiraahdo hase yeeshee ay dhab tahay in ninkaas Trump uusan ogeyn waxa uu ka hadlayo. dawladda iyo dadka Ethiopia waligood laguma hadlamin bayaan ayna mas'uuliyad ku dheehnayn oo noocaas oo kala ah taariikhda ayaa inoo macallina ayuu ra'iisul wasaarihii hore Ethiopia. horaantii bishii September ayay ahayd markii dawladda Mareykanka ku dhawaaqday in dhaqaalaha gargaar ka jari doonto Addis Ababa arrinta salka ku haysa biyo xireenka ballaaran ee uu dalkaasi ka dhinac dhisayo wabiga Niil. arrinta waxaa sabab u ah tallaabada Ethiopia ay ku buuxinayso biyo xireenka weyn ka hor inta aynan heshiis la gaarin dalalka Sudan iyo Masar oo saameyn xoogan ay ku leeyihiin biyahan. Masar ayaa muddo dheer waxay ka soo horjeedeen wabiga Niil laga dhinac dhiso wax kasta oo yareyn kara biyaha ay hesho Qaahira. Ethiopia ayaa iyana sheegaysa in biyo xireenku ay u doonayso inay hesho koronto la isku halayn karo oo Afrika iyo Yurub qaybo kamid ah ay gaarsiiso. marka si buuxda loo hawlgaliyo biyo xireenka waxa uu noqon doonaa biyo xireenka ugu weyn ee Afrika ee koronto lagu dhaliyo iyadoo korontada ay heli doonaan 65 milyan oo qof oo Ethiopian ah. Masar, Sudan iyo Ethiopia ayaa muddo sanadaha waxay lahaayeen wada hadallo ay doonayeen inay uga heshiiyaan qaabka iyo habka ugu habboon ee si nabad xal loogu gaari karo ammaanka biyaha wabiga Niil. laakiin dalalka ayaa ku kala arti duwanaaday muddooyinkii ugu dambeeyay hanjabaado labada dhinac ayaana cirka isku shishareerayay. Avrupa'da
son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaşıyoruz. dhinaca kalena aynu eegnay wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ayana u dhaxaysa dalalka Turkiga iyo waliba Faransiiska ayaa cirka isku shareertay saacada markii madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron uu yahay nin aan maskaxaan caafimaad qabin oo ay tahay in la baaro. Faransiiska ayaa wadatashi ugu yeeray safiirkiisa u fadhiyay Turkiga kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hadalla xarafna uu ku weeraray dhigiisa dalkaasi. xubno ka tirsan xisbiga AK Party ayaa madaxweynaha Turkiga u sheegay in Macron uu u baahan yahay baaritaan dhanka maskaxda. Macron oo ka falceliyay dilka nin macallin taariikhda ahaa oo qoorta laga jaray kadib markii uu soo bandhigay sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee ayaa wacad ku maray dalkiisa uusan joojin doonin sawirada noocaas ah ee been abuurka taas oo ka caraysay malaayiin muslimiin oo dunida daafaheeda ku nool. labada hogaamiye ee dalalkoodu ay ka wada tirsan yihiin gaashaanbuurta NATO muddooyinkii u dambeeyay waxay isku hayeen arrimo ay ka mid yihiin colaadaha Suuriya, Liibiya iyo waliba sidoo kale gobolada ay ku muransan yihiin Armenia iyo Azerbaijan. hadalka Erdogan ayaa ahaa mid si toos ah ugu weeray shakhsiyadda Macron. madaxweyne Erdogan ayaana ka carooday in qaar ka mid ah dhismayaasha dowladaha hoose ee Faransiiska lagu soo bandhigay sawir gacmeedkii macallinka loo dilay xilli xus loo sameeyay Arbacadii la soo dhaafay. waxa uu kaloo dhaliilay hadal uu Macron jeediyay ka hor dilka oo ah in diinta Islaamku ay dhibaato xoogan ka wajahayso caalamka oo dhan. muslimiinta oo Faransiiska ayaa kuwa ugu badan ee Yurub isla markaana gaaraya 10% tirada shacabka dalka. qaar ka mid ah muslimiinta ayaa ku eedeeyay Macron inuu gees ka gelinayo diintooda hadalladiisuna ay qiil siin karaan kuwa islaam nacaybka uu ka buuxo. xiisadda labada dal ayaa meel adag gaartay waxaana Turkigu uu taageeray in la qaadaco alaabaha Faransiiska lagu sameeyo arrintaas oo ka bilaabatay qaybo ka mid ah bariga dhexe Durba.